mahadsanide xubinteena ciyaaraha ayaynu waxaan ku soo qaadan doonaa sida loogu kala ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub iyo waliba xubinta dhinaca suuqa ciyaartoyda ee kala iibsiga ay kooxuhu ay kala iibsadaan. haddaba haddaynu soo qaadano aynu ku horeyno horyaalka dalka Ingiriiska. horyaalka dalka Ingiriiska ayaa toddobaadkan waxa la ciyaaray Sabtidii iyo Axaddii. kooxuhu waxay u ciyaareen kooxaha Manchester United iyo Man City ayaa waxa dhex martay ciyaar aad u adag. ciyaartaasi ayaa waxa ay ku soo dhamaatay 2-1 ay ku badisay kooxda Manchester United waxaana halkaasi lagu laalay rajadii horyaalka ay ka lahayd kooxda Man City. راشفورد ياخذ الوضعيه اللائقه راشفورد وجول. يا لها من براعه ويا لها من روعه ويا له من راشفورد. 10 اهداف للاعب الدولي راشفورد. هذه المره سجل في الدقيقه 23 من عمر الشوط الاول من هذه المباراه. قلنا لكم بان مانشستر يونايتد عاد وبان مانشستر يونايتد خطير وقوي في الهجوم. يراوغ يرجع لدانيال جيمس دخل ومارسيال رجعت له وتسديده وجول. يا إلهي يا سلام، ما هذه الروعة وما هذه الفعالية اللي عناصر مانشستر يونايتد باليمنى تدخل باليسرى تدخل من ضربة جزاء تدخل تمريرة عرضية تمر عرضية في العمق تمر بالهجمات المعاكسة مروا. aynu gudubna xagga ay horyaalka dalka Isbaanishka oo ay hurboodayaan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo isku dhibca. kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxa ay ku kala hadhi doonaan ciyaarta galaasikada sida la filayo, balse sida ay u kala ciyaareen kooxda Barcelona ayaa iyadu waxay la ciyaartay kooxda Real Mallorca. ciyaartaasi ayaa waxay ku dhamaatay 5-2 ay ku badisay kooxda Barcelona waxaana xusid mudnayd in kooxda Barcelona 3 kamid ah goolashaasi u dhaliyay ciyaartoyga ku guuleystay xidiga adduunka ee Lionel Messi. ciyaartaasi iyo waliba kooxda Real Madrid natiijadeedii adii kala baxo. هو كل ما جد طاري الكلاسيكو في الجانب المقابل ينتفض ميسي. كلما جئنا بطاري الريال يسجل ميسي يعتاد على ذلك. وفي ليلة الاحتفالية بالبالندو ميسي يضرب من بعيد ويضع كرة في شباك مانولو ريانا ليعلن عن 10 الأهداف. كرة بمحاولة في منطقة الجزاء خطيرة تأتي. يا سلام، الله 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 الله. بودمير يسجل بودمير ويضع كرة في شباك شتيغن ويعلن عن تقليص الفارق ليعيد المواجهة من جديد إلى أرضية الملعب مرة أخرى. رباعية على سيلتا فيغو يبحث عن ثلاثية. لا 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 لا. بارسا في أمان. ميسي يتواجد في كل مكان يسجل الثالث الآن ويعلن عن هدف آخر يواصل من خلاله سلسلة الإبداع من طريق التسديدات. هنا لدينا بنزيما خطيرة. الله، يسجل لدينا رافائيل فاران أول أهداف ريال مدريد هنا عن طريق قلب الدفاع. نعم، حاول الكل لكن رافائيل فاران من خلال المحاولة الأولى الفرصة الأولى يسجل لمصلحة سليمة ممتازة. وصلت إلى فالفيردي يحاول يلعب الكرة العرضية وبنزيما. نعم، جول. يسجل. نعم، يضيع مرة يضيع الثانية لكن الثالثة لابد بأن تكون. ugu dambeyntii xubinteena wararka ciyaaraha ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa horyaalka dalka Talyaaniga oo kooxda Juventus ay ka badisay kooxda Lazio. ciyaartaasi ayaa waxay ku soo dhamaatay 3-1. bal eegno horyaalka dalka Talyaaniga sidii ay kooxuhu u kala badiyeen halka kooxda Interna ay weli horboodayso horyaalka dalkaasi Talyaaniga. كرة جول. 1-0 في وقت الكلام. ألم أكلمك يا كاتب التاريخ، ألم أحدثك يا تاريخ لتنتظر رأيي لتفهم وضعي. قلت لك
لك رونالدو سيسجل، ورونالدو بعاداته في الأولمبيكو مرة من هنا. دقيقة 30 اشتعلت أضواء في معسكر يوفنتوس وانطفت في مدرجات سيموني إنزاغي. 1-0 في المتابعة. راجع بروح. intaas waxaynu ugu dhan xubinteeni wararka ciyaaraha, balse intayna hawada ku kala bixin aan xasuusiyo ciyaarta caawa xiisaha badan leh ee dhexmari doonta kooxda Arsenal iyo weli West Ham United. ciyaartan ayaa waxay ka dhici doontaa garoonka kooxda West Ham United saacada geeska Afrika markay tahay 11 habeenimo. qodobkaasi ayaa waxa uu dambeeyay xubinteeni wararka ciyaaraha, balse aan dib ugu celiyo istuudiga koowaad ee wararka uu ku sugan yahay Cabdirus Maxamed Axmed.